okay engineer waxa jiro gap ama laba gap oo u dhaxayso laba generation gap u dhaxayo generationkii hore ee dawladii maxaa si aad bar wax bartay ee beerahan researchkii iyo waxyaabihii la sameynayay ku jiray iyo dhalinyaradan dambe oo wixii 2005 ka dambeysay wax barteen oo beeraha cilmiga beeraha barteen waxa la dhigi karaa wixii 2010kii loo gaaray ay wax barteen iyo gaab u dhaxay dhalinyaradan hadda wax baratay iyo beeraleyda marka gaab sidoo loo xalin karaa waxa waxa jiro firaaq u dhaxeeyay dadkii hore wax bartay oo xilligii dawladii kacaanka ay jirtay dadkii beeraha cilmiga beeraha kuna shaqeeyay oo soo saaray hadda faraayada hadda aan ka sheekeynay firaaq waa jira oo muddo 20 sano ba firaaq burbur wadanka jiro oo lagu soo laaba karin marka 20 sano 10 sano dambe waxa la dhigi karaa waxa dad beeraha u dhaqaaqo oo aan ka xusi karno rag badan aan ka xusi karno waxa kamida Allah naxariisto Ustaad Warfaa oo rector Jaamacadda Zamzam aha oo wadanka soo laabtay Ustaad Warfaa Allah naxariisto waa dhinta Allah naxariisto wax badan aan la dhigi karaa wadanka dhiirigelin iyo wax badan iyo taladiisa iyo tusaalihiisa wadanka ka qabtay sidoo kale waxa jiro Professor Bafa jiro sidoo kale oo wadanka wax badan ka dhiirigeliyo barnaamij dhaxal reeb la dhahay sameeyay sidoo kale waxa jiro sadaqane oo geel madax u ahaa inuu mashruuc geel ragaas oo kulli in badan si isugu xiri lahaayeen waqti badan ku bixiyay waagi hore waxbarashada beeraha la xiriir waxa ay waxbarasho beeraha oo dalkan wax lagu qabanayay oo wadanka dadka ka soo go'day ahayn laakiin hadda midaan hadda wadanka taalo waa mid ganacsato gaar loo leeyahay ganacsato gaar maartay oo ay u sameysatay beero wax badan waa dhigi karaa firaaq waxay ka faa'iideysteen dawlad la'aanta wadanka jirta ka faa'iideysteen cilmiga beeraha wuxuu ka mid yahay cilmigii soo daahay xitaa oo cilmigii markii la bilaabay jaamacadaha gaarka ma jirin jaamacad markii hore bilowday cilmiga beeraha oo cilmi lagu dhiiri karo ma ahan cilmiga beeraha cilmi adag weey waxa la dhigi karaa jaamacadda ugu horeysay inay tahay marna jaamacadda Banaadir professor-adeeda iyo kulli maamulkeeda iyo halkaan aan ka salaama oo ay macallimiinta ay soo saartay oo kuwa dalka wax badan wax ka taray oo ku soo xigtay jaamacadda Zamzam jaamacadda ummadda kulli jaamacadahaas iyo jaamacado kale badan jiro oo kulliyada beeraha bixiyo wax badan ay ka tareen beeraha waayadan dambe hab ugu horeysay jaamacadda Zamzam oo jaamacad soo saartay ardayda ugu badan beeraha wax muuqda wadanka ka sameeyay eeridan hadda anaga aan joogno oo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya wax muuqda ka sameeyaan waxa la dhigi karaa isku xirka firaaq waa u dhaxeeya waa sax isku xirkeedana waxa oo aysan karaa dadka markii dawladdu ay burburtay dawladda ay burburtay dadka ay kala tageen dadka aqoonta la wadanka u tageen ka faa'iideystay marka dadka beeraha wadamada ay tageen dadka beeraha bartay wax badan oo muuqda u qabteen wadamada ay tageen oo waxaan dad dawlad shuuci oo kacaan ay wax bartay ahayn oo si fiican wax loo baray si fiican loogu dadaalay oo qof macnaha qofku wadan uu joogo qarashkaaga wax ku baraa iyo markay dadku dhan ay sameeyeen si siman wax u barasho u helayaan kala mid ah marka dad si fiican wax loo baray loo carbiyo oo practice badan la siiyo bay ahaayeen kulli wadamada markaas ay tageen ka faa'iideystay iyo qaar wadanka ku haro shaqooyin kale u gadistay marka way adkaatay in isku xirmaan hadda generation kan cusub oo hadda soo kacay oo beeraha waa kuwa ku soo dhaqaaday beeraha casriga ah had soo kordhay marka ay laftigooda waxa moodaa si tartiib inay beerihii ku yaalay dhulka koonfurta Soomaaliya beeraha ku ah inaad magaalooyinka la tagi karo hadda macquulka ay tahay in tala tago wax laga hirgeliyo oo nidaamka amniga u saamaxay waxa moodaa in si tartiib dadka dambe oo beeraha ka baxay ay hawlo fiican uga qabanayaan runtii wax badan ku soo kordhiyeen dadkii hore ee beeraha hore u joogay ama dugsiga tababarka ama qaab traditionalka wax ku soo bartay wax ku waday marka waxa la dhigi karaa isku xirku hadda
waayadan dambe 5 sano u dambeysay rajo fiican u leeyahay inay isku xirmaan waxbarashadii hore waxbarashada dhexe iyo midaan casriga ma santahay kaasi wuxuu ahaa injineer Cabdisaaq Muuse Dhiblaawe oo aan ku wareysanay gudaha beertiisa oo barnaamijkeennii dal dhisno ugu ramayay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.